gabadheeda hooyada hadday ma jartaanta waa dhulbaanta dhulbaantana waa harti hooyada lagu soo duulayay ee laascaano joogtay ee duqeymaha iyo gantaalada lala soo dhacayay waxaa ma garabsan iyadaa lagu soo duulay ismada iyo garaadada matala wax badan bay u digeen oo waxay dhaheen dhulka iyo deegaanka nooga baxa ayaar idin doonaya بالفعل reerka isaaq la dhaho waxay sheegaan in aysan Soomaali ahayn oo ay dal gaaran yihiin qaranka kan waa filin la isku qarinayo waa isaaq aniga aragtida markaan hadlo huwan tahay hartiga ku tilmaamayaan iyaga uga dhow sababtoo ah harti waa reer daarada kabla lah ka ah koomba ka ah harti ka ah nimana kan iyaga isaaq taagan oo ciise iyo godobiirso wata ayaa wax isku qarinayaan qaran okay qaranku muxuu sameeynaya dad masaakiin ku duulaya مساجد بودقينية إسبتال بودقينية إسكو مرة أحسن وشخصي يلاو ما يشاء الله ضحي شخصي يلاو ما هي مليان وي هدي اللي بيجي من أي جيران واحد كبضا أنت دول مجو بريري أو فنان أو الشيخ أو مد زلدانات شكتله أو مدحله هذا بقى أنا إلهي أود ويسيب واحد هاي يعني أنا حيقف صبور كنا دينتي سمو كاجل صبرك إلهي السيء وأود كم يدعوه ذاتك أنت سو دلمي يجي سنة مدحونها الصومالية ويقطع وضع أنا قد يدي عالك الصومالية من سنة أيو دبرك يجي جبيه يسوي السرنعي بأيكتهاي أيو صومالي لان لعق يسيني يقعد قيمة يقول وضع وده الشيء دي دلان كي هو بيلا دعية أيو حفلة يلولو يسوي إسماعيل عمر قال وجودان كلاه أي دقنية وما باهم waxay islahaayeen way jabayaan iyo ciidan iyo waxay tabar hayeen waa soo siiyay iyagii baan jabiyay saburkii waa iga dhamaaday dakka baan ka dhigay ilaahay qoom markuu halaagayo malaa'ig iyo waxba loo soo diraa wiilasheedii 20 jirada ahaa baa loo soo diray wax arara wax kaba qaata wax gurguurta wax ooya wax qalaada ayay noqdeen ismaaciil cumar gale iyo xasan sheekh wax ay soo siinayeen qaniimo ilaahay ay soo diray baa noqotay dowladaha ruushka iyo dowladaha caalamka tagay maanta iyo ma soo baabacdii karaan harti oo qoray ahayd baan ku Soomaali maxamed oo dhan hadii ay maanta isu timaado awoodaan iskaga dhiciya ilaahay si awan la kartideedii awoodeeda waa laha maantana hubkeedii baan leeyahay hadaba nimankii xaq darrada ku jabay kolkii aan fogeeyay oo meeshii aan lahaa aad aan khasab iyo bahdil ku geeyay oo raggii shalay oo rabadaan caruurteeda iyo maxastayda gantaalada la dhacaayay qaarna aan xirxir qaarna aan laayay wixii ay caruurteedu adeegsanayeen aan ka qaaday si aan iyagu hadii ay dib u dhaqaaqaan aan madax uga la dhaco isma garwaaqsan oo ma oran ilaahu tooba isma iyo sheekh wixii shalay aamusnaa oo bil rabadaan maxasteeda xasuuq la geynayay islaamo aan wali hore u arago aan ku fakirin war hooyooyina kan la duqeynayo waa hooyooyin Soomaaliyeed dhulkoodii iyo deegaankoodii baa lagu duulay niman fanaaniin sheegan jiray qaarkood ay maka tageen munaafiqiina wixii baa la soo baxay maxaa loo soo baxay karawaano daajana yada isku si loo wada hadlay garoon hooyadaaba sida aad u tiri Soomaaliya ma rabo baan ku iri kuma rabo sida aad u tiri isaaq baanahay baan u iri waxaan ahay harti yaasino ana maysto أنا إنا اسكت ضي إنا أذكر لها شذا ربطة أنا عروش أقول لك سنة تتمدى غير هالليس وساعدت لك عن إلى هذا قفك على هذا عن إلى هذا أوكي ساعد فرد بعمر طاي أنا كل هاللي اللي جيسوا أنا شوفنا هذا الكلام مني عروش المهم تذكر مظاهرات أنا يمروز ياسين عبدي أكيد تذكر مظاهرات يا مرك oo qaylinaya oo dhulka isla dhacaya oo la qaran baa lagu soo duulay qaran lagu soo duulay waa isaaq gardaroonaya hargeysa iyo baroo ciidana ma tagine waxa la duqeynayay shalay magaaladeeda ah guri ay leeyihiin iyo dhul isaaq ma aha dhul sida ay Soomaali u diideen baan anigu u diiday nin la dulmiyi karo in la khasbi karo maahi tabartooda iyo taaqtooda iyo wixii ay awood haysteen waa ka qaniimaystay saasay tahay anoo laga gardarnaayo dhasheedii maxasteedii dhallaankayga lagu gardarooday baan waxa leeyahay waryaala halkiina ku ekaado oo isimada iyo garaadada anu waliyal amar deegaankayga fiiri harti wuxuu ku dhisan yahay ama daaro waa awoodo ilaahay uu wada barakeeyay
واسمده maalintii laascaano harti uu soo galay reer walba qorigu ka weyn habawta ismana dagaala sababtan wax kale ma aha ilaahay wuxuu nasiiyay ismo dhaqan leh dulmiga aan qaadan ehlu diina xaraan aan cunin ducadoodu kaco habarkooduna kaco oo daliishadu ay tahay war wallahi si fool xun baad uga baxaysan shalay markay lahaayeen kalsoonida ay ku hadlayeen mid ilaahay ku ilaalinayay marka almuhim markaan ku hadlayo iyo hadalka qodobadiisa aruusha waxaan ku soo jaray wana aan dhulka maqnayn oo leh dhul aan laga rabin sida uu Soomaalidu diidan yahay baan raba inaan khasab ku qaato waa aragti muuqato oo qof kasta oo aqli leh uu waalideeda la yaaban yahay nin Soomaaliyeed baa tahay xaqqa ka hadalkiisa maxaa ku diiday kan iyo kanna ma aha ninna waa gardarooday oo guri islaameed buu hooyo la dhacay waa lagu gardarooday si cadaalad uga hadal yaasino adiga isma dareemaysid laakiin waxa gudbinoosaa hate speech waxaa la dhahaa adoo aragtidaada ka hadlaayo oo wax adiga kugu jiro ka hadlaayo wax adiga kaa dhex guuxaya ka hadlaayo waxa gudbinoosaa kuwana in la dhibaateeyo kuwana inay wax dhibaateeyeen halmar dhegeyso adiga isma dareemaysid kuwana inay wax dhibaateeyeen kuwana in la dhibaateeya ka hadloosaa yaasiin waxaa ka hadashay ani hooyaday maadaama ani hooyaday aa ka hadashay أنا ملينا إني أنا هو يدي وصل تربية سي قف كالوالد كي إن كهذا لو واحد تاي واحد سنين إن كهذا له إن هو يدي واحد تاي أنا أفكي كشيكت هذا مش شيء واحد تاي ما أهن هذا ملقو الديناي إن هو يدي فكر كي أمسن تاي وواحد أنا هاد يقدر حقوق حيوان هو يدي هدي دارو تاي أو مجرتين تاي أو عثمان محمود تاي معني هذا ما أهن إني هو يدي كفكرته إن سومالي إسباب بيسو إن دارو دي ساقل إسكوباب بيو إن دارو ديويل إسكوباب بيو إن هبي يدري ميجل في إسباب بيو إنسان إسكوباب بيو هو يدي إنه كفكرته هالمرسوق شعب كل حسوقي هذا شعب كل حسوقي هو شيء وكو إيمانه هالمرسوق ياسين ما أهن إني هو يدي فكر كسام سنتا ما أهن أنا وحان قدانين دل يرعاه I'm not here to charge someone in and go hebela qaldan in and go ma ahan Somaliland waa way samee karaan the same way misleading u samee karaan